maalin wanaagsan waxaan idin wadaa war degdeg ah oo ku saabsan 78 xubnood oo al-shabaab oo goordhow lagu dilay deegaanka Buulaxaaji ee gobolka Jubbada Hoose haddaba isku daygoodii saaka waa uu fashilmay baabuurtoodii qaraxida inta aanay xarada soo gaarin ayaa iyaga lagu halaagay kadib markii gantaalo lagu dhiftay wili meedadka ayaa la kala gurayaa sidoo kale hub iyo rasaas aan tiro lahayn ayay saaka gacanta ku dhigeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugnaa deegaanka Buulaxaaji haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan rabaa inaan kugula wadaago warbixintan adiguna haddii aad ku faraxsan tahay jabka khawaarijta muuqaalkan waa kaadi wararka ka imaanaya deegaanka Buulaxaaji ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ku waramayaan in saaka aroortii kooxda al-shabaab ay isku dayday inay halkaasi ku qaado weerar ay ugu magac dareen afjar kuwaas oo ay marba ay ku qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanku xariyaha ay ku leeyihiin deegaanada laga wareegay al-shabaab Buulaxaaji toddobaadyo ka hor ayaa laga saaray kooxda argagixisada ee al-shabaab kadib markii ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya ay gacanta ku dhigeen deegaankaasi cutubyo ka tirsan ciidamada ayaa halkaasi ku lahaa xerooyin military hase yeeshee al-shabaab ayaa sidii caadada u ahayd mar walba oo magaalo laga saaro isku daygoodii waxay saaka isku dayeen inay weerar cagmarina ay ku qaadaan halkaasi ay suurto gelin oo sidii ay rabeen waxba uma dhicin ciidamada ayaa ka hortagay waxaana baabuurtii ay qaraxda u saarnaayeen lala helay gantaalo iyo madaafiic iyaga ayaana lagu halaagay kadibna dagaal toos ah oo la hareereeyay ayaa lagu qaaday halkaasi wararka hordhaca oo ka imaanaya waxay sheegayaan in la dilay in ka badan 70 xubnood inkastoo khasaaruhu oo daqiiqadba midda ka dambaysa uu sii tarayo siina kordhi karo wararku waxay sheegayaan in ciidamadu ay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo al-shabaabkii halkaasi yimid laga furtay saaka maleeshiyadii weerarka soo qaaday way yartahay inta cagooda ku baxsatay ee naftooda la badbaaday waa khasaare kale oo weyn oo la gaarsiinayo kooxda argagixisada al-shabaab kadib maalmo ka hor khasaarihii weynaa ee lagu gaarsiiyey gobolada Shabeellada Dhexe Mudug iyo sidoo kale Hiiraan halkaas oo weeraro lagu qaaday cagmarin lagu sameeyay iyaga lana baabi'iyay mar kale saaka Buulaxaaji isku daygoodii waa ay fashilmeen waxaana la sheegayaa in ciidamadu ay markii hore hayeen xogta in maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay isku dayi doonaan inay xariyaan soo weeraraan maadaama aanay magaalada ku dagaalamin markii hore oo intay ka baxeen ay isku dayaan mar walbaba inay xariyaha ciidamada ay dib u soo weeraraan khasaaruhu sidaan idin sheegay daqiiqada ka dambaysa waa uu sii kordhayaa waxaana laga yaabaa in tiradu intaas ka badato hubka iyo gaadiidka ayaa la sheegay in dhawaan loo soo bandhigi doono warbaahinta oo lagu mashquulsan yahay hadda sidii hal goob la isugu geey lahaa meedadku waa ay daadsan yihiin saaka Buulaxaaji al-shabaab waana tirabeel aad iyo aad ayaa war loogu farxo uu ka imaanaya Buulaxaaji cadawgun inuu mar walba jabo oo la baabi'iyo waa fursadda dahabiga ah ee dadka Soomaaliyeed sababtoo ah al-shabaab sidaan la socono waa ay la degeen ummadda Soomaaliyeed dalkana halka uu maanta maraya iyaga ayaa gaarsiiyay oo Soomaaliya hadeer ka hor ayaa asaageeda la tartami lahayd haddaba wixii warar ay ka soo kordho howlgalka ka dhacay Buulaxaaji mar walba iyo daqiiqad kasta halkan ayaan kula soo wadaagaya idinkuna isha ku haya bogeygan Axmed Saciid Axmed waa mahadsantiin saaxiibayaal